ومر كله يمناسبات كله يحسك استديو تبان كمي وإنه عاونا يسوون نمي وسر الجورو كسو بيج مساء وقت يا سومالي لأن كسو قدبتي شر يمر حالات إن بدن ودنا فرت اللجوهي وسر الجورو أفريقيا صدرات وإنه كل بلدقينه سومالي لأن عمر كله عالم كيجلس كأفريقيا وموجسي هرمركا يدمرادية دا يونا جفرة بدن ليكشرة يصير كله قلب كومي مثلا إن سومالي لأن أي مرحلة كستك جودبتو يسقطوا مذا يمين لماذا الشعب كذا إن واحد يود بلدقنا استديو تبان كمي وسومالي لأن أي كجودبتي مركلة حالات يقول يبرواقو كجسوقت هاي إن ومرحلة أي نكود بلدقنا يدو سومالي لأن مستقبل كذا إيفايو إن ومناسبات إنه قصوا بيجنتي وقت أي سومالي لأن إن وكذا عايز بدل وقتي مدحوينين يوري سومالان مصبيح عبدي وسيقو بنمله أو شرف له أو كرامة له وحلكي قرق وجوريشي مدحوينين لدورتي كحيجي ومرحلة سومالان كيس كأفريقيا كيف يسوع ومرحلة تعب كني يو وناكست يتعكست سومالان لسوق الشضي ما تمريسي لهايو ومرحلة إنه وجود بلدقين سومالان إنه نبدأ وصيات كينو ومرحلة إنه وجود بلدقين سومالان إن هالكتاب إنه كسي عم بقانو إن كل كان وحلمي هون عاو مناسبة فرح بدنا جودهان دافع عالم ككدعية تاسو شعب كسومالان ميل كستو أي شوغان أي سكوسو بمرحيان كنا موجينيان سيدا أني سومالان وهاين وحدا يلا جانا قب كرأي أي تاي قضية أمضي وإمي كشني يسودون جرس أفري سودون جرستي إن رتي وين كوفانينا إن نوري سومالان هاي وين كوكان عسنا هاي وين كوفانينا وين كون ولانينا وين كون دمانينا إن نوري سومالان هاي وقرين حفلتنا إن أي كوفرنا أيضا قرآن كريم كا إن على كسومالان توحيد كويا لا وحيالا إلهي سبحانه وتعالى إنه بركيبه كم تهين إنه مركز إلهي سبحانه وتعالى إنه حق الدين توجه شرنا عبد القادر عبد الله وكسود وين يسوع أيضا قرآن إنه غفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. إلهي أيضا القرآن الكريم كاهن وانفعه إن حفلتين إنه هروب صعننا
maadaama oo aynu u dabaaldegayno xuska sanad guurada 400aad ee Jamhuuriyadda Somaliland maanta Somaliland markaan eegno marxaladda marayso qof kasta oo reer Somaliland hal waajibaad ayaa saaran kaas oo ah in maanta Somaliland ay muujiso midnimo dawladda jirta iyo madaxweynaha cusub ee talada qabtayna in la garab galo inkastoo nin geesi ragu gadaadiyay haddaan garab kala la qaban gurigoodii ma ay ahayd murti Soomaaliyeed madaxweynaha hadii keligii ku hadlayno iyo golihiisa wasiirada iyo dadka kale taladayno ay keligood wax ma qabanayaan inaynu la garab qabanno qodobkeenu ugu baahida badanayna waxa weeyaan Somaliland gudahiyo dibadba midnimo inaynu muujino Somaliland inaga leh cid aan inaga lahayn oo la yimid jirto hadii wax noqoto inaga wax naga noqonaysaa Somaliland bari iyo galbeedba waxa aynu muhiimeynayno midnimo muujino oo ay naga goonaatay inaynu ilaashano sharafteena iyo karaamadeenna iyo wadajirkeena iyo horumarkeena Somaliland 400 sanadood baa caawa laga joogaa maalintii lagu dhawaaqay laakiin 400 sanadood Somaliland iskama taagnayn xoog iyo xoolo iyo dhaqaale waa la geliyay Somaliland halka waxay ku soo gaadhay waxa weeyaan waa dadaalkii muwaadiniinteeda waliba qurba jooguna ay kaalin muhiima oo aan la hilmaami karin kuleeyeen waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala idinkoo midnimo idinkoo gacmo ay haysta mucaarid iyo muxaafidba inaynu ka shaqeynayno dalkeena si horumarino mid ugu weyn inuu ogaanayna waxa weeyaan Somaliland mucaarid iyo muxaafid gudaha intiinu joognayno bay kala nahay laakiin jiritaankeeda waynu wada ilaashanaynaa qof walbana waajib baa ka saaran qof walbana waxa muhiima inuu wixii tacabkeena ahaa aanay lumin Somaliland way jiraysaa wayna jiri doontaa insha Allah ta'ala inta aynu nool nahayna calankeenu uu taagnaanaya waxaan ku soo dhaweynayaa inuu inooga warbixiyo Maxamed Cige oo horena uga mid ahaa xildhibaanadii golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee sanadkii 2021 muddadoodu dhamaatay xildhibaan hore ku soo dhawow xildhibaanku information ku inaga siin doonaa arrimaha gudaha Somaliland hala soo dhaweeyo xildhibaanka bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka hore waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay qaybgalkan armaanta ka soo qayb galay 8 May ka dhacay magaalada Ottawa caasimadda Canada marka labaad waxaan salaan gaar ah u gudbinayaa rag iyo dumarba gaar ahaan dumarka oo si wanaagsan ay muddo ragga inoogu yaree kulkuliyiin xagga dowladnimada xaggaana caynkaas weeyaan iyagu baa laga kulkulu oo meeshii iyo wixii la falayaba dumarkunba caynka fiilka koowaad leh markaa taasoo salaam gaara weeye waxaa la xilsaaray baan u malaynayaa waddankii gudihiisii horta waddanka gudihiisa sidiisaba waxaa nooga waran dadka qurbaha jooga marmar baanu warka gudaha anagoo gudaha joogna warku dibadda naga yimaadaa oo telefoon laga soo diray waxaasaa dhacaya maxaa ka jira markaa horta wadigiisa gari ma jiro xaqiiqo waa taa laakiin haddii laga maarmi waayo in fini la sheego waddankii horta anigu kanadiyaanna waa nahay xaggaana waa deganahay imanka sanadii maalimanin beryaha soo dhawaan joogay xaggaas waxaan qabaa waddankeeni maanta maalinkan maanta aynu joogno maalinu ka wanaagsan yahay runtii inaana jirin waxyaabaha koowaad ee aad iyo aad loogu dirsado aan filaya inay dhaqso u dhacaan waxaa ka mid ah kow ictiraafkii inaynu helno tan labaad waxaan aad iyo aad niyada ugu haya ama aan u malaynaya ama aan u filaya ma ay tahayba maxaabiista inaga maqan ee dagaaladii inagaga maqan in degdeg u soo baxaan kolley bishan haddii soo bixi waayaan bisha dhow iyo wixii ku dhow waa soo baxaya sida muuqata waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay jawga ay ku socoto waddankii uu ku socdo ee fafaaraha uu leeyahay wanaagga iyo sida ka muuqata sida dadku iyo runtiisu u wanaagsan tahay taasna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waddankeenu joognay aynu ka nabay Somaliland la yidhaahdo
لو ذوتها الدولة بعد السنة هبكوا رسينا وحوي هب دولة هذا حسبية بدنا وأنا حسبية ده بدنا واحد تريه دي قربة إنك الدولة قبطانة ومحافظ إنك لقى قبصدانة ومعارض والسنة ويتاس يعني سوى عنهم أنا حسبة كتر سنة رنتي مرة معارض بعناها مرة محافظ بعناها محافظ كان كنت بيه معارض كمان كانوا نوعين وأنا أفكر لهم إنك الدولة شوفت معارض كيرا ما أفقهوا بقى وحس شيء وحس ولا وحسيبه وحكست بهاته كليل كوحالة لأنك كنت فريقهم بعد التوصيل يومي كل الكلمة شو ميالو فهمتوا ما كتير كانوا معلمتي سكوتوا رضي يلا حسب معارض محافظ هذه الكلمة اللي نفرسنا يلا للهودي يلا نسهلنا بودنا ميل برضو نفرسنا شهوة الكود عبنا وأنا حال ما تصدقت لي وأنا أسمع معنا مركا هرت دبعت ما جرتو دولة اللي من كردستان يتيكو الرسبة تاني من كردستان وحقوات لكن وحقوات كيف دويلي هو من كعبة بالروضة دولة دي هورنا وحقوات كيف هو لك سنة آلية هو لك سنة هالكي ودك الجالس سنة ولا بقوية معارضي محافظ بحوية لك قبل أطنوا لوجم هتسيه دورشة قدام بيسي وأنا شو قرنتي سيدي أقول عضينا أنا بدورشة لمدة ما أعرف تي هل كان داخل عدنا وين شوي كان وين شوي أنا قلت لي بقى بروح ولا ماشي شو ندير الدوريو سيدي وحول الآن دورشة ولا دونا جيدا يا سيدي وحوق الله وانت اسمعين يا سيدي تذكر لوك الهاجي يا سيدي ما شاء الله يقول عضي إلا هم بشيء كره خلاص قوانعه هذه خلاص ودعوه وفي تستاجر خلاص بعد عاد ورا بعدين وخلاص لكن خلاص قوانعه ولا صحة خلاص ده ما سببنا ما شاء الله بيه كقال إنك الدولة جوبته دولة جوبته وحلاقي عمر كورنا كم ده دستور كان ورقنا أنك أما أنا كورني بوجي ترسك wuxuu ahaa dowladdaas in loo dhiibo dhalinyaro oo dadkii waaweynaa ay siinka ka baxaan anigu waan ka mid ka ah waxaan qabaa inta wasiirra la qaatay iyo inta la soo wado iyo inta daarta jira la qaatay in konton min ay ka yartiin oo yahay ninka weynaa ku jira qaar baa dhowr iyo labaatan jir ah anigu waxaan garanayaa qaar aan soddonka gaarin oo dhiijiya qaar soddonka gaarin oo dhiijiya waxaa dhacday waxaa la sameeyey dad aan weligood si wixii la oran jiray in wax la wada yeesho waxa dhigana waxa weeye waa in wax la wada yeesho waa in la sinaado waa inaan la kala badsan resadka la kala badsan si kastaba loo eegay ama aqoon ha ahaato ama si kala ha ahaato dadkuna dadweynaha joogaana horta dadka aqoonta badan leeya dadka aqoonta yar la fara badan dadka aqoonta yar waa dadka hadii jeer qabaayilka wada dowladka wada dirka riixay annaka reeriyo annaka maxsada lagu yeeruwa waxa u dhignay dowladda cusub in aqoon lagu hogaamiyo cid kastaba ha ahaatee wax kastaba ha ahaatee at the end of the day in wixii waddanka yaala loo sinaado oo sinaan ay ku socoto waxaa caadiyan dhacda weligeed bidci jirtay qof baa shaqeeya meel baa loo diraa wadafasir u joogaa sanado badan buu joogaa maalin baa laga bedelaa wuxuu dhaa waa laga bedelay maxaa laga bedelay anaa meesha lahaaya caqligaasaa dadku ku furan wixii in ay rotation tahay oo kursiga dowladdu leedahay maalin badan fadhiisanaya wax kastaba ha ahaadee ama maariya ha ahaado ama wasiire ha ahaado in wali wuu ogyahay laakiin wixii waa wareegto waddankeeni imanka sidaa uu sheegay saas u wanaagsan yahay waxaa jirta oo yaraan ku daraya xagga waddankeena haddii waddankeena aanu qurbajoogin oo qurbajoog wax u taraynin halkaana maynu gaarneen waxna horeyna umaynu marineen qoys Somaliland joogo ka dhisan
oo aan shilin qurba joog soo diray aan ka dhadhamin waa yaryahay anigu marka xaggan joogo sanad iyo bar baan maaha dee qurba joog lacag usoo diraan cunay qoysaanu ka dhadhamin ma jiro haddii aanu ka dhadhamin idima noolaateen dowladda aynu ku noolay $100 lasoo diro qofkaa loo diray maahay 100 qof oo kale ayaa mana facadsada aad baa u mahadsantay qurba jooglo aad iyo aad baa u mahadsantay gaar ahaan qurba joogga North America gaar ahaan ama Canada ingiriiskana aad baa loo ammaanay aad iyo aad bay qaab muxtareen ninka aabihii wuxuu diraa aabihii oo keliya wax muxtareen Soomaaliland oo muxtareen waxbuu ku iibsanaya Marius sanaya rashbus 100 qof baa ka faa'iideysanaya marka qurba joog aad iyo aad buu waxtar u leeyahay qurba joog dhibaato kalena wuu yaraynayahay marmar baad moodaysaa siyaasadda gurracan inay xagga qurba joogga ka timaado oo de qofkii guriga joogay gudaha joogayba uu khalkhal geliyo xoogaagana waa laga sheeganay ama waa iska dhacdaaba male waa ku raagay baan u malaynayaa waddankii waa idin wada baahan yahay haweenkana waa u baahan yahay anigu golaha wakiiladan joogay waxa aanu goosanay haddaan golaha joognay inkastaa muddo kasii maraa in at least 30% dumarka laga siiyo baarlamaanka waxaa lagu heshiiyey dumarku doorashada ha galeen doorashadii galo haddana dumarkii socodeen waaye arrinta waddanka gudihiisa caynkaasuu yahay warka haysaan war ahaan ma jiro waad arkaysaa dee waqti waa yare sheegayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعزية يا سعد حسين محمد عيقه وكتر سنة قولي هوري وكيلة جمهورية سوماليلاند xuska 18 May laga soo bilaabo 1999 ilaa maanta maalinba marxalad buu marayay maalinba marxalad baa lagu xusiyay taariikhda Soomaaliland kamay soo bilaabmin 1999 ee waxay noo soo bilaabaysaa 1960 June waqtiga aynu calankeena ka qaadanay dowladda Ingiriiska balse dowladnimadii naga luntay ayuu baynu dib u soo ceshanay 1999 taariikh ku saabsan Somaliland 18 May iyo taariikhii kala duwanaa ee soo martay ayaan ku soo dhaweynaya Maxamuud Sheekh Xasan inuu halkan isaguna inooga jeediyo بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaynu joognaa celebration Somaliland waa imisa sanadood 4 masha Allah oo aynu nabadgelyadii iyo dimuqraadiyadii aynu adkaynay oo aynu dooranay ilaa 5 madaxweyne socay kama ilaa 6 haddii aynu halkaa gaadhnay waxay noo dhimani waxa weeye waddankeenu uu dihin yahay waddan barwaaqo ah wixii ku jiray inaynu la soo baxno haddaba haddaynu isweydiino Somaliland maxaa macdan ku jirta batroolkan ka bilaabo markaad kaga qabato Lughaya Berbera Saraar Daalo Holhol Oodweyne iyo Salaxley intaba batrool baa ku jira haddii aan ku xijiyo dahabka markaad arabsiya kaga qabato ilaa Cabdilqaadir dahab taatan imikada walo dad baa qoto oo meelaha ayaan laakiin waan cilmiyeena buurta daalana dahab ku jira iyo uranium ta ugu qaalisan dunida buuraha Sheekh ilaa taarburu ilaa aad xadka ka galayso platinum ayaa ka buuxda platinum way ka qaalisan tahay inaan dahabka
haddii aynu beeraha u soo noqonno banka Togo Jaale waxa laga beeraa dunida way qarqaraysaa kalluunka ugu badan duniduna wuxuu ku jiraa Laas Qore waxaas oo dhan sidii aynu ula soo bixi lahayn ayaa maanta in hortaala siyaasadii inoo hortaalo inaynu waddankeena hore u marino ayaynu hortaala waddankiin oo aynu u soo dadaalay oo aynu taariikh dheer ilaa maalintii aynu gobonimada qaadanay waxaan kusoo dhaweynayaa hadda Naasir Cismaan Cumar haddii uu joogo Naasir ha soo dhawaado Naasir wuxuu nagala hadli doonaa qodob aynu aad iyo aad ugu baahi ugu qabno oo ah midnimada in shacabka Soomaaliland ay midoobaan iyo faa'iidada weyn ee ku jirta iyo muhiimadda gaarka ah ay maanta sii leedahay insha Allah taala kusoo dhaw Naasir السلام عليكم يا بعض ما سمعتي نكاسي نودي ميكروفونك عادي waxaan u salaamayaa dhamaan ka soo qayb galayaasha rag iyo dumarba xafladan tii 4-soddonaad ay ka soo wareegtay qarannimadii Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan leeyahay welcome waanad mahadsantiin inta ka bacdi waxa la ii dhiibay inaan ka hadlo topiga unity-ga marka unity la soo qaadana waa diiniyan oo Ilaahay baa ina faraya inaynu midnimada iyo wadajirka ummaddu uu yahay waajib waxaana ku xidhan midnimada waxa ku xidhan amniga iyo nabadgelyada ku xidhan marka kalmadaydaas horta anigoo ka guduulaya midnimada Somaliland gaar ahaan waxay taabanaysaa midnimadu qurbajooggeena cidda ugu baahi badan ee maanta midnimo u baahan waa qurbajooggeena gaar ahaan reer Ottawa aad iyo aad baan ugu baahannahay inaan midnimo muujino inaan wadajir muujino xukuumaddeena Jamhuuriyadda Somaliland halkudhigaygu waxa weeyaan wadajir iyo horumar wadajir iyo horumarka waxaa la doonayaa inay muraayad u noqdo qurbajoogku oo inaga naga muuqato wadajirka horumarka hore ugu jirnay haddaynu nahay reer Somaliland qurbajooga horumarka waddanka kaalin weyn baynu ku lahayn waynu ku yeelan doonaan horena waan ugu lahayn wadajirka xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdilaahi iyo madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Cali ay nagu hogaaminayaan waxa loo baahan yahay inuu inagana inaga hirgalo oo inaga muuqdo oo aynu midnimadaasi xoojino waxaan intaa ku darayaa xukuumaddan cusub laba qodob oo muhiim ah ayaanu ka haynaa already qodobka laga dhabaynayo nabadgelyada iyo midnimada xukuumaddan Cabdiraxmaan madaxweyne Cabdiraxmaan hogaaminayo qodobkayga koobaad waxa weeyaan waa midnimo iyo wadajir taasina waxay ka muuqataa oo kaalinta ay ku guulaysatay nabadeyntii colaadii bariga iyo qaramayntii ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland iyo dib-u-yegleelodoodii labadaa qodob waa qodob ka turjumaya waa laba qodob oo ka turjumaya ajendaha cad ay noo sheegeen dowladda madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro innaguna sidaas ayaynaga rabaa inaan la garab galno oo midnimada ay dowladdu ka shaqeynayso aan ka shaqeyno maxay ahayd wadajirka ay dowladdu wadana inaynu wadno waxa halka ay ku xigaan midnimo marka la yiraahdo waxa soo raacaya markaad midnimo tiraa waxa soo raacaya cadaalad haddii jirin midnimo iman mayso cadaaladuna ilaahay agtiisay taallaa laakiin waxaanu doonaynaa in ay dowladdeenu ku dhawaato justice-ka intii ay samayn karto cadaalad bilaadan baanu nahay ilaahay baa cadaaladda dhammaystiri karaa laakiin haddana inaynu ku dadaalno inaynu justice ay ku darto dowladdu intaa waxa dheer Soomaalidu waxay tiraahdaa habeenkiina waa habar maalintiina waa oday
إنه قرب جوج بينهاي قرب جوج مركان لنا هنا أبويها بين يا أقوم بين نقطهم يا أقوم تمعنيه وحوي درار بين جوجنا سومالي لان قديه وحكتنا وأفريقيا هبر تاجرته لكن إنه مركان نقول بجوج وين نقولنا درار وين جوجنا وكدون مراية بدها تعب ويجوا ما أركيان وحنا إنه أركنا يا بنتنا إنه أركنا أغنى ما أركيان وحيجا موضة وسياسة بعد احتالا وضد ذكي جوجا وحبيك الريحانيان لكن إنه مهم إنه حبك الريحانين إنه ودكينا ربنا إنه هرمرين ودكينا ندون من نويشوا وحين كل الريحانين ما تفتح marka waa inaynu muraayada dharaarta inagu xidhanaa iyagu hada xidhiyiinta maxay ahaydeen habarta midda waa ku daraya waa sida uu noo sheegay xildhibaankii gudaha dadka jooga waxbay kala riixdaan waxbay kala jiitaan laakiin way wada joogaan laakiin kuwa qurbo joogu ma oga qolada guduhu sida isku xidhan yihiin يسدى ولا شاهيان يسدى ولا كفتميان إنه حاجة قربها واحد نجتها واحد مودينا عند دكتور القيبسية ذات وجودها ما كان قيبسنا وحبي سكوهيان ظروفات جرا وحبي كل الريحانيان إنه سوى حبي كل الريحانينه إنه الله قضى بنا كانوا جوجنا أبان يد نرشينا نتبرنو أبان تايم نبرنا عيد عرب برنا نوين نقطة ودكين therefore waxa looga baahan yahay waxaan aan doonayno in ay wadankeenu noqdo sidoo waan sugna qurbajoog wadankeenu sidoo doonayna noqono ma eeka laakiin waxaan u baahanahay inaynu inagu muujino oo aan dadkii ku baraarujino war sidana qurbaha looga nool yahay midnimo wax lagu goyn karaa wadajir baa wax lagu goynayaa aad iyo aad baan maasantay waan dheereeyay haliga hada wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay ناصر عثمان مراد بمعزية هاي قلب كها قوته كصابسن أي آلو مهمة قربتشوق واحد تبدل لغته ما هو مرقالة لكن سومالي لأن ما تمر كذاكتان مرحلة دي مريسو انت رقالة وباهنت هاي وحاكب بدل ما انت وباهنت هاي إن أقول لغو كنتربيوت كريو وأقول لغو قرب كرو برشدنا وقت حالة كان السوشيال ميديا أود بدل لي واحد مدعيني حق السرس هو مرين تدك انتي أن لدقيسين شرين لكن aqoonyahankii culimadii iyo dadkii wax garanayay caqligu shaqeynayay waxay muuqatay inay xagga damba galeen waxaan xasuustaa 2014 anagoo joognay masaajidka Calimataan oo waqti Ramadaan ay tahay ayaa waxa soo galay aadan xaaji cali waqtigaa gudoomiyaha maxkamadda sare Soomaaliland oo markaas uu la magacaabay deetana culimo badan baa meesha fadhiday Sheekh Dir baa kamid ah Sheekh Maxamed Aadan baa kamid ah Sheekh Mustafa kamid ah Sheekh Maxamed Cali Galle ku jiray anuna waxa kamid ah waqtigaas fiintii goobta ku sugnaa aadan xaaji cali qodob aad macquul ku dooday wuxuu qofka wanaagsan hadduu nidaamka dawladnimada soo geli waayo soo qofka xumajaan silmay marka dadkeena aqoonyahanka ee qurbaha waliba jooga ee xadaaradan iyo dawladnimadan iyo dadkan tashaday systemkoodii la falgalay ee garanaya waa muhiim in Soomaaliland maanta marka ugu yartahay uu ku contribute gareeyo nidaamka dawladnimada inuu aqoon iyo wixii kale uu ku contribute gareeyo wadanku dhaqaalahan uu dhismay laakiin maanta aqoonta ayaa baahi badan loo qabaa aqoon baa loo baahan yahay dadkeenii kala hagta aqoon baa loo baahan yahay dadkeena wax u kala sheegta intii xumeed baa xagga sare soo martay laakiin waxa loo baahan yahay dadka aqoonyahanka ay xaq hore yimaadaan oo qurbo joog ay la barkow ka yihiin xagga dumarka ayaan jecelahay inaan kelmad siiyo Nafiisa Maxamed oo kamid ah doorka haweenka ee xafladeena ugu sugan Nafiisa Maxamed soo dhawaato kelmadii dumarka ku soo dhawaato السلام عليكم وتعالى وبركاته inkastoo aan qorshaha ku jirin oo la gaaday reer Burco la gaadana waad ka garanaysaa way iga sii rajaysataan ma dartay gidaarada ku sii rajaysataan marka hore aad salaamaya dadkiina sharafta badan ee aadka u qurux badan leh ee ka soo qayb galay xafladan
aad iyo aadka u qurux badan leh maasha Allah dadka soo abaabulay waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sidan quruxda badan aad uga soo qayb gasheen idinkuna wallahi wax badan kuma dirsanayo mahadsantahay wax weyn ma odhanayo laakiin waxaan rabaa inaan ku yaro dirsado dowladda cusub ee Somaliland waxaan oran lahaa inaad ka qayb geliso maanta waxaan u hadlayaa dumarka iyo youthka Somaliland in ay dumarland inay qayb ka siiyaan marka hadday xukuumadda tahay hadday siyaasadda tahay iyagoo dad soo koraya dadkuna waxay moodaa marka wadankii la joogo in dadka dibadda yimaada aad madaragtay ama youth ha noqoto ama dumarka ha noqoto in dadka xagga dibadaha ka yimi wax la siiyo hadday noqoto xagga siyaasadda laakiin waxaan oran lahaa waa in hoos loo eego youthka iyo dumarka ku nool wadanka gudahooda waa iyaga mustaqbalkiya maanta anagoo kale for example wadankan baan wax ku baranay wadankan baa hooyigay ama ku barbaaranay ama wax ku dhalnay ama wax madaragta wax ku dhalnay oo siyaasadeeda aanu fahmayna laakiin ubadka halkaa jooga iyagaa wax ku bartay maanta iyagaa iga Soomaali ku wacan wadankeena hooyo Soomaali baa lagu hadlaa English markay noqoto ama luqadda kale ummadda kale ayaa wax lagula qaybsadaa laakiin mar walba waxaa baawara oo madaragta qiimo badan afkaaga hooyo wadan waliba afkiisa hooyo maaragta qiimo ku leeyahay marka waxaan ugu doodayaa youthka xagga jooga iyaga si fiican afkoodii ama madaragta si siyaasaddu u soconayso ama language-ka u soconayso ama afkii hooyaba dee garanayo qof kasta ka qiimo badan dhalinyaro badan baa wax baratay oo madaragta ama xilka la siinin ama madaragtay position la siinin maanta qof dibadda ka yimi ama ha weynaado ama ha yaraado ayaad moodaa in madaragtay ama xil la siinayo ama wax la siinayo laakiin waxa fiican in hoos loo eego youthka iyo dumarka without youthka iyo dumarka we are nothing dowladna ma soconayso wadankuna horumar ma gaarayo marka taalaajigeed baas lahaa ku darso xukuumadda cusub waxaan ka codsanayaa inaad dumarka aad madaragtay hoos u eegto oo qiimahooda la'aanta dumar waad arkaysaa halkan waxaa soo sharaxa inta badan waa dumarka saan u arko ragoo soo camireen baan malaynayaa marka intaasaan ku darsanayay insha Allah intaasoo baan lahaa in cidda madaragtay kuma jirin wadigaha lehanaysa laakiin qorshahaygu intaasuu ahaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad mahadsantahay Nafisa reer Burcode Somaliland halkay ka nooshay maanta waa Burco mala halkii Somaliland laga dhawaaqayna waa Burco maantana Somaliland marxaladii ay taagnay cidda ku guntay waa reer Burco runta markay soo sheegno marka reer Burco Somaliland iyaga la marona iyaga taariikhdooda ka bilaabata kula dhamaata reer Burco madaxayna u saarayeen aad iyo aad bay Nafisa mahadsantahay in marka hore waxaan kusoo dhaweynayaa Ugbaad oo inooga timi magaaladii Hargeysa caasimadii Jamhuuriyadda Somaliland kana socota wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland Ugbaad soo dhaweyn lahayd Ugbaad soo dhawow Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin horta aad iyo aad waan idin wada mahadcelinayaa xafladan quruxda badan aad noo soo diyaariseen weliba jaaliyadda reer Ottawa oo gudoomiyaha Leila Noor horta si toos ah si rasmi baraba inaan u mahadceliyaa soddon sannadood bay u shaqaynaysay qaranka si toos ah markaana horta waxaa loo mahadceliya Leila Noor walaalayaal magacaygu waxa weeyaan Ugbaad Naasir Cumar waxaan yahay agaasimaha waaxda qurba jooga oo wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland marka walaalayaal and friends of Somaliland. Sorry, we've been doing all of the speeches in Somali, but I'd just like to extend our thanks to all the friends of Somaliland who are here with us today. Well, I waxaan oranayaa weliba sanadkan haddii aqoonsiga noo dhowdahay themeka sanadka waxa weeyaan gacmo wada jir guul lagu hanta marka translation waxa weeyaan together we achieve success and truly 18 May waxa weeyaan waa maalinta lagu garan karayo inaan
wada jir wax ku heli karayno inaan hal reer ama hal nin waxba keligiis muu sameyn wadanka waan wada leenahay adeertaanina siduu khudbada noo soo bandhigay waa sax wadankeena qiimihiisa wanaan wada ogaano hal qof amba hal reer waxba ma dhamaysan karayaan iyo qurba joog haddaad wax nala qaban karaysin waxa weeyaan inaad MPskiina magaalo walba aad joogtiin aad ogaantiin oo la xidhiidhin aad ka hadashin Somaliland iyo arrinta Somaliland gudaha ka socota annagana wasaarad ahaan inaan qodbino talking points saad u fahamtaan muhiimadda Somaliland waxay leedahay iyo qiimaha leedahay insha Allah bidilaahi kariim marka anigana aad iyo aad bay farxad igu tahay inaan maanta la joogo aniga oo reer Ottawa marka horeba anigana dowladda maanta matalaya aad iyo aad bay farxad igu tahay inaan la joogo marka wasiirkeena Cabdiraxmaan Daahir isagoo reer Ottawa marka hore aad buu ka xinayeen in maanta la joogo hadda wuxuu rabaa inuu kugu mahad celiyo insha Allah iyo insha Allah maalin dhow inuu noo imaado reer Ottawa marka aad iyo aad baan mahad celinaya waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo guud Somaliland waxay noo yimi xagga dambe naga soo biiray safiirkeenii hore ee Somaliland u qaabilsanaa dalka Imaaraadka Carabta Ambassador Xasan Yaasiin waxaa jira Somaliland wadamo ay taariikh gaar ah wadaagaan wadamada aynu taariikhaha wadaagno waxaa ka mid ah wadanka Suudaan oo isagu dhowaan helay xorriyadiisii sanadkii 2012 noqday dalka madax bannaan Suudaan inteeda kale waxaan ku soo dhaweynayaa wadanka socda wadanka Suudaan Francis oo ka socda wadanka Suudaan ayaa jecelahay kan inuu kelmad inooga jeediyo Happy Somali Day today. Happy Somaliland today. I'm very happy to be with you tonight and to celebrate the Somaliland, which we celebrate yearly. And it is very fantastic to be joining you tonight. And also I have a message from the member of parliament that I work with him, that I've been advising him that Somaliland need to be independent and be recognized by international community. And I'm going to read his letter that he gave it to me from. He's a well-known to all Canadians. His name is Arnold Bersons. He's a member of Parliament of Canada. He gave me this letter to read it for you, that he recognizes Somaliland to be an independent country. He said May 17, 2025, dear guest, it is my pleasure to recognize the National Independence Day of Republic of Somaliland. Your advocacy for the blocks of Somaliland admirables. I too appreciate the friendship you have extended to my through and various meetings. You've been having a meeting with a couple of members of parliament of Somaliland. We met many times with Honorable Isa K, who was the Minister of Foreign Affairs of Somaliland. We met with him when he was visiting Ottawa. And we met also with the within the leaders of communities here, the same things. He said, I wish you all the best as you celebrate today. I pray the peace and well-being of your people wherever they are and celebrate the special day. Sincerely,
Honorable Arnold Berson, the Member of Parliament of Canada. And he also gave me a recognition certificate. And these are recognition certificate. These are the certificates that I get from him that I have to give it to others members of this community here. Leila Noor Mohammed to be recognized by the government of Canada. Another recognition tonight is Abdurrahim Musa Adam. This is also the certificate from the House of Commons, which is coming for recognition of Somaliland. So, Abdurrahman, if he is here, or one can take in behalf of Abdurrahman the certificate. So, we try, as I'm original from South Sudan, when Sudan is divided into two, it's not based, it's like where the politics like going on in Somaliland and Mogadishu. Have nothing to do with tribes, have nothing to do with religion, it's the politics. So politics is divided people wherever they are. So we been lobbying a lot for recognition of Somaliland, and I want you to work with the Leila Noor and here and our teams for recognition. What we are looking for, we're looking for 25 people in order to sign the petition, and that petition they may be able to be announced in the House of Commons in order to talk about the recognition of Somaliland here in Canada. And that's where I keep telling him all the time when I met with him, I tell him that Somaliland need to be recognized because Somaliland is a very peaceful country. I have nothing to do with what is going on in the Middle East or in Mogadishu. And that is why I'm here to pass his a message, because he's a member of Parliament, but not from Ottawa. He is from Edmonton, which is Peace River, and he delegated me to come and pass a message for you. And I'm very happy to have you here tonight. Beautiful ladies, handsome men are around me. Thank you so much. Have a good evening. oo hadalka uu inoo soo xidho wakiilkii hore ee Somaliland u qaabilsanaa dalka Imaaraadka Carabta Ambassador Xasan Yaasiin oo runtii ka mid ah dadka waayaaraga ee qarankana u soo shaqeeyay qayb waqtigiisii ka midana dowladnimada Somaliland soo gashaday haatanna inuu kula sugan xafladan Ambassador ku soo dhawoobeen leenahay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. waxaan dhammaantiin ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaanteen caawa waxaynu isugu nimi inaynu u dabaaldegno maalinta qarannimadeena oo in badan oo inaga midi ay u aragto inay aroos qaran tahay, laakiin waa maalin qaran aynu horta sidaas u fahamno. maadaama dadyow kalena inala joogaan, waxaan doonayaa kelmadeyda inaan laba eray oo insha Allah tacaala si dadka kalena inoola fahmaan oo ingiriisi aan ku idhaahdo. marka hore waxaan u mahadcelinayaa inanteeni wasaaradda arrimaha dibadda inooga timi ee hadalka koobana quruxda badan leh halkan inooga jeedisay. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Again, tonight all of us, we gather together here with hearts full of pride and gratitude to celebrate Somaliland Independence Day, a day that stands as a testament to our unwavering spirit, resilience, and commitment to peace and prosperity. Since we reclaim our sovereignty from unrectified union, Somaliland has walked a remarkable path, and our nation has made an immense sacrifice, ensuring that we all enjoy a life of peace, harmony, and opportunity. We all have built a society defined by democratic values, where our voices of the people are heard and respected.
our presidential elections and local elections that was observed by the international community have been hailed as some of the fairness and the most transparent in the history of Africa and the world. This is a remarkable achievement, one that speaks to our nation's commitment to democracy and good governance. Please, all of us, join me a round of applause for our president and our vice president for their hard work and dedication. Let's all stand together and give a round of applause for our president and they have made a unique and remarkable improvement in our eastern parts of the country. And as we celebrate tonight, let's remember the sacrifices of our forefathers, honor their hard work, and our leaders, their commitment, and also commit ourselves to a future of a continual progress, unity, and peace. Happy Somaliland Day and happy 18 May for all of you. waxaan insha Allah kusoo gunaanadayaa golaha wasiirada ee madaxweynaheena iyo madaxweyne ku-xigeenku ay doorteen. waxaa jira niman kamid ah oo runtii muujiyey mudakarnimo iyo shaqo dheeraada oo runtii mudan in dhammaantood shacabka loo wada garaaco. waxaan halkan ka xusayaa wasiirka arrimaha dibadda wasiir Bakaal oo runtii muujiyey mudakarnimo iyo dadaal dheeraada in muddadii koobnayd ee uu joogay. waxaa kaloo halkan uga mahadcelinaynaa wasiirka warfaafinta Somaliland oo isaguna muujiyey mudakarnimo iyo wadaniyad gooniya intii uu sidii uga howlgalay arrimihii midaynta ciidamada madaniga ah ee gobolada bariga Jamhuuriyadda Somaliland. labadaas oo kaliya ma dhammaantood waxay mudan yihiin in si gooniya loogu gacan shacabka loogu garaaco oo loo muujiyo geesinimada iyo dadaalkay muujiyeen lagu taageero dhammaantood. And one more time aynu shacabka u garaacno golaha wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan idinkaga tegayaa Somaliland bilaash kumaynaan helin. waxaa ogaataan rag baa dhiigoodii iyo dheecaankoodiiba u soo shubay. waxaad ogaataan ilaashigeedu inagu waajib inaga saaran yahay. waxaad ogaataan dhiigga loo soo shubay ee maanta dadkeennu ay harsanayaan inaad uga mahad celisaan, ilaalisaan qarannimadoodana aad ogaataan gudo iyo dabadba waxay naga saaran mas-uuliyad gooniya. waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada iyo gudoomiyaha jaaliyadda ee soo qabanqaabiya xafladan. aad iyo aadna waa idinku mahad celinaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. u mahadsan yahay abastorko runtii arrintaa inoo sheegay ku saabsan ilaalinta Somaliland. qof kasta oo Somaliland 34 sannadood ay jirtay maalin irbadin u geliyay abaalka kaliya ee aynu u gudi karnaa waa inaynu ilaalino Somaliland. ragga u dhintay iyo raggii qalinka u galay iyo raggii duurka u galay iyo raggii halganka u galay iyo raggii hadiya habeenba u soo malhaaday maanta abaalkooda waxaanu ka dhigi karnaa inaynu Somaliland ilaalino. abaal kale oo ay naga mudan yihiin ma jirto. gudoomiye Leela iyo Maxamed iyo u yeedho insha Allah taala 1 minute asiyo soo dhow gudoomiye soo dhow Maxamedna soo dhoweyno. maxamed gudoomiye maamuusaya gudoomiye Leela iyo xubno kale way ku jiraan maamusida. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقعي هو محمد. وأنا بقعد على عبد الجسم. مركا ليلة كورة جدية ليلة هذا كنا نبنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قصة نقضي واحد شعر ضيمانتا إنه قاليا وأنا قلنا إنه family friends نهاي إن العاوة هدية قالية قدوسيو يش هذا الشرف أنتي ولا سو شقية محمود شيخ حسن تالي سودو. هو ما تنتين ليلو يحترم يا أبا يا بين صاحبها. جايين
way badantay laakiin haddii la ishaamay in la ismaamuuso laisu abaal celiyo waa inta aynu somaliland dheer tahay qofka waxaa la yidhi bilaada ku mahad celintay ilaahay inuu mahad celiyo taani odayaasha inoogu mudan buu ku jiraa ilaahay ha karaameeyo cimri dheer iyo caafimaad baynu ilaahay subxaana watacaala u weydiinaynaa dhammaanteen qof kastoo somaliland maalin usoo shaqeeyey mustaqbal waara oo khayr qaba iyo cimri dheer iyo caafimaad baynu u rajaynaynaa muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan somaliland aynu ilaashanno weliba aynu ku ilaashanno inagoo midnimo muujinayna somaliland marxalado horena midnimay kaga soo gudubtay maantana waxay ugu baahi badan tahay inay midnimo hesho si ay marxalado soo socda uga gudubto waxaan doonaya inaan kusoo dhaweeyo gudoomiye leyla gudoomiyaha jaaliyadda somaliland ee magaalada oo dhawa ayaan doonaya inaan kusoo dhaweeyo gudoomiye leyla soo dhawow bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan u macalinayaa dadka maanta kasoo qayb galay xafladda ATV aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dadkii la soo qabanqaabiya xafladda maanta quruxda badan waxaan leeyahay dhammaantiinba insha allah waan idin ogahay inaad garab taagan tihiin waxaan halkan maanta hambalyo aan la soo koobi karin u dirayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ciidamada qaranka gurtida baarlamaanka dhammaan waxaan ku wada salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu